runti wacan oo wanaagsan dhammaan asxaabta ku xiran janaalka Daacad Tube waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub oo aynu kaga hadli doono 14 arrimood oo aas-aasi u ah horumarinta naftaada xilliga waxbarashada balse inta aynu gudagalin muuqaalkan waxaynu kaa codsanaynaa haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqato inaad subscribe saarto gambalada kana aad furto si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela muuqaalada aan soo gelino halkan sidoo kale aad like nagu dhiirigeliso muuqaalkan aad la wadaagto asxaabtaada dhanka iyo commentigana waxa geeyna una soo dhawaada muuqaalka oo dhameystiran Selfie cross-mat, zoomka out de banaanka iskaga loof noo saar, commenti negative, sheeka dhinacaaga noo sheergay ay haddaan soo heesayga tiga saar waxaan soo sheegay dhegataada u furo waad ogtahay waxaan ayaani wiil qaran inaad noqoto qof nidaamsan waa aas-aas aad ku gaari karto natiijooyinka ugu wanaagsan ee dhanka waxbarashada haddaba si aad u gaarto inaad noqoto qof nidaamsan waxaan idiin soo gudbinayaa 14 calaamadood oo kaa dhigaya nafsadaada mid horumarsan xilliga waxbarashada lambarka koowaad xadeey maalinta bilowga ah daraasado la sameeyay ayaa muujinaya in la xadeeyo maalinta la bilaabayo barashada xirfad cusub ama aqoon kororsi si aad u kordhiso fursadaha in la daa'imo oo aadan ka caajisin arrintan oo kugu riixaysa xaqiijinta hadafkaaga calaamada labaad waxay noqonaysaa qor ahdaaftaada gaarka ah hadafkaada waxbarasho waa inaynu ku koobnaan oo kaliya sidii aad muudasal ku keeni lahayd oo qura waa in aragtidaada intaa dhaafsiisnaataa waxaad xamaasad badan iyo firfircooni aad ka heli doontaa oo naftaada dhiirigelin u noqonaysa marka aad dejiso ahdaaf gaar ah oo dhanka waxbarashada sida inaad takhasuskaada xoogga saarto oo aad u sii diyaargarowdo adigoon ku ekaanaynin manhajka iyo duruusta uu macalinka kuu dhigo lambarka saddexaad ku fikir natiijada dadaalkaaga ku fikir oo sii meelay marka aad dugsiga sare ama jaamacadda aad dhammayso sida ay aqoontaadu noqon doonto cilmigaagana aad bulshada wax ugu tari lahayd arrintaasi waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad si wanaagsan wax u sii barato lambarka afraad wuxuu noqonayaa markasta diyaar ahaw xilliga waxbarashada waxaa dhici karta inay ku soo wajahdo xaalad aadan filayn naftaada u sii diyaari xaalad kasta si hadhow aynu welwelka kugu badan si aad waxbarashada ugu sii nagaato lambarka shanaad wuxuu noqonayaa ka fogow wax walba oo soo jiidasho leh wax walba oo naftaada mashquulin kara waqtigaagana dili kara ka fogow xilliga waxbarashada lambarka lixaad ku dadaal shay faa'iido badan oo naftaadu jeclaysan karto markaa si fiican wax u barto caado fiican aad leedahay waxaa halkaa ku kulmiya wixii ay waajib ahayd inaad samayso iyo wixii aad jecleed inaad fuliso lambarka toddobaad wuxuu noqonayaa ra'yi weydii dadka kugu hareeraysan waxaadan arkin ayay isha ku hayaan sidaa darteeda waxaa muhiim ah in dadka kugu hareeraysan aad talo weydiiso si aad naftaada u horumariso calaamada sideedaad daraasad ku sameey wax walboo suuragal ah xilliga go'aan qaadashada noloshu waa go'aan qaadasho sidaa darteeda marka aad go'aan gaarayso daraasad ku samee dhammaan waddooyinka go'aanka uu kuu noqon kara mid wanaagsan lambarka sagaalaad cuntadaada wanaaji ku dadaal cuntada oo qaado raashin dhammaystira oo ka qayb qaadan kara inaad si wanaagsan wax u barato lambarka tobanaad dib u eegis joogto ah naftaada ku sameey si joogto ah u xisaabi naftaada si aad u ogaato inaad waddadii saxda ahayd ku socoto iyo in kale lambarka 11aad adeegso barnaamijka boost si waajibkaaga kuu qorshaysana iyo ballamahaaga uu ku soo xasuusiyo lambarka 12aad wuxuu noqonayaa raasib saaxiibo kula mid ah saaxiibka wanaagsan ee dadaalka badan mar walba uu kugu hagaa hadafkaada nolosha sida ugu wanaagsan wuu ku dhiirigeliyaa sidaa darteeda marnamaha yaraysan saaxiibkaaga wanaagsan lambarka 13aad waa inaad noqoto qof nidaamsan balse waa arrin shakhsi ah inaad noqoto qof nidaamsan waa arrin shakhsi ah dadka oo dhan inay kula mid ahaadaanna shardi maahan lambarka ugu dambeeya ee warbixinteena waa lambarka 14aad in aad noqoto shakhsi nidaamsan waxay u baahan tahay in aad naftaada ku layliso waddada saxan ama waddada wanaagsan intaasi ayay inoogu eg tahay warbixintii ayna idinku talagalay muuqaalkiisa xiga inta aan ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo amaano allah hana ka iloowina janaalkan inaad saartaan subscribe gambalaalkana aad furataan laagtana aad inagu dhiirigelisaan muuqaalkaana aad asxaabtiina la wadaagtaan sidoo kale wixii fikrad aad inoo haysana aad inoogu reebto dhanka hoose ee commentiga